saddex sano jir ayuu kubadda cagta ku bilaabay waana xidig heer qaran oo dhanka tenniska ah. dhalasho ayuu ka haystaa dalka Talyaaniga waxaana uu xiriir jacayl bilaabay isagoo aan gaarin da'da 18 sano. xidigga aan ka hadlaynaa maanta waa da'yarka ku cusub kooxda Real Madrid ee Franco Mastantuono. 14 Agoosto sanadkii 2007 ayuu Franco Mastantuono ku dhashay magaalada yar ee Azul ee dhacda dalka Argentina. waa magaalo caan ku ah xoolo dhaqashada iyo nolosha degan, balse Franco Mastantuono waxa uu bedelay sheekada magaaladaas. isagoo ilmo yar ah ayuu wada ciyaari jiray kubadda cagta iyo midda tenniska oo isbarbar socda, markaasoo dadka deegaanka oo dhan ay dareemeen inuu ka duwan yahay carruurta kale. isagoo 3 jir ah ayuu bilaabay ciyaarista kubadda cagta, waxaana aabbihiis uu ahaa tababarihiisii ugu horreeyey. Franco Mastantuono waxa uu tababarkiisii ugu horreeyey ka bilaabay Riva de Azul oo ah koox yar oo maxalli ah oo ka dhisan magaalada Azul. waxa uu noqday ciyaaryahan heer qaran oo dhanka tenniska ah isagoo cunug yar ah. ka hor inta uusan kubadda cagta si dhab ah ugu go'in, waxa uu Franco Mastantuono ku jiray 10 ciyaaryahan ee da'yarta qaranka Argentina ugu fiicnaa dhanka tenniska, markaasoo ay da'diisu ahayd Mastantuono 10 sano. sanadkii 2017 kooxda River Plate ayaa ku casuuntay Franco Mastantuono akadeemiyadeeda kadib markii imtixaan tijaabo ah oo uu u maray uu kaga yaabiyey tababarayaasha, balse si lama filaan ah qoyskiisu waxay doorteen inuu sii wato ciyaarta tenniska halkii uu ka geli lahaa akadeemiyadda naadiga River Plate. Franco waxa uu isagoo 11 jir ah ku biiray Club Clemento ka hor inta uusan u dhaqaaqin akadeemiyadda kooxda River Plate sanadkii 2019. 8 bishii Febraayo ee sanadkii 2024 Franco Mastantuono waxa uu noqday xidigii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya taariikhda kooxda River Plate, waxaana uu goolkaas ka dhaliyay kulan qayb ka ahaa Copa Argentina, isagoo jebiyey rikoorkaas oo uu hore u haystay Javier Saviola. Franco Mastantuono waxa uu haystaa dhalashada 2 waddan oo kala ah Argentina iyo Talyaaniga, waana mid u fududayn karta inuu ku safro qaaradda Yurub oo dhan. Mastantuono waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya kulanka Super El Clasico ee dhexmara kooxaha River Plate iyo Boca Juniors. waxa uu ahaa goolkaasi laad xor ah ama free kick uu ka tuuray meel 28 mitir u jirta goosha kooxda Boca Juniors bishii Abriil ee 2025, markaasoo Mastantuono uu jiray 17 sano iyo 257 maalmood. Mastantuono waxa uu ku daydaa xidigihii hore ee kooxda River Plate ee Ignacio Fernandez, Matias Suarez iyo Julian Alvarez. Franco Mastantuono waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee Argentina ku matala tartan rasmi ah 5 bishii Juun ee 2025, isagoo 17 sano jir ah ayuu ka soo muuqday kulankii dhexmaray xulalka qaranka Argentina iyo Chile ee isreebreebka koobka adduunka, waxaana uu jebiyey rikoorkaas oo in ka badan qarni u yaalay Adolfo Heisinga. Franco waa xidig lugta bidix ku ciyaara, hal abuur leh, kubaddana naqshadayn kara, daafacyada jebin kara, waxa uuna ciyaari karaa doorka qadka dhexe, midka weerarka iyo booska caanka ah ee 10aad. xidigga ku cusub kooxda Real Madrid ee Franco Mastantuono oo ay wax badan ka filayaan taageerayaasha kooxda cadcadka ayaa xiriir jacayl oo qarsoodi ah la leh gabadha lagu magacaabo Fiona Agostinelli. sababta ay xiriirkooda u qariyeenna waxaa lagu sheegay in ay la xiriirta da'diisa, maadaama ciyaaryahanku uu bishan gudaheeda 18 sano jirsaday. xiriirkooda jacayl ee qarsoodiga ah awgii xog badan lagama hayo jacaylka Franco Mastantuono iyo Fiona Agostinelli, balse waxaa la filayaa maadaama Franco Mastantuono uu 18 sano jirsaday kuna biiray kooxda waaweyn ee Real Madrid in xiriirkiisa uu bannaanka soo dhigo bilaha soo aadan.